filimkeena wuxuu ku bilaabanayaa maanta qeybaha Faransiiska waxaana halkaa jooga wiil iyo aabihii Samuel. Ma fahmayo aabihii asiga, laakiin wuxuu fahmi doonaa markuu weynaado. Samuel sanado ka bacdi wuu weynaanayaa wuxuuna noqonayaa sida aabihii oo kale. Samuel waa mid ku nool qeybaha Faransiiska wuxuuna u shaqeeyaa haweeney lagu magacaabo Samada ayaa waxay milkile ka tahay maraakiib iyo doomo dalxiis. maraakiibta ayuu wuxuu ka yahay milkile ka soco Samada. Samuel waa mid asiga jecel inuu habeenkii cabo khamri wuxuuna la baashaalaa waqtiyada habeenkii doomihiisa dalxiiska dumar fara badan. maalin maalmaha ka mid ah asigoo ku raaxaysanaya doomihiisa ayaa waxaa u imaanaysa haweeney lagu magacaabo Christine. haweeneydan ayaa waxay gacanta ku wado cunuga daayar, laakiin waxaa ka hor imaanayo Samuel markuu ka hor imaado ayuu wuxuu sheegi doontaa cunugan inay asiga oo dhalay, laakiin Samuel waxay la naqanaysaa mid la yaab leh wuuna ka aqbalayaa, laakiin waxay u sheegaysaa inay la dedegsan tahay ay u baahan tahay lacag transport ah. laakiin asiga isla markii wuxuu aasanayaa gudaha wuxuuna u soo qabanayaa lacagtii transportka ahayd. Christine waxay ka dhaqaaqaysaa meeshii waxayna ku naqanaysaa gaarigii ebil ku timide waxayna aasanaysaa aeroboortka. Samuel wuxuu soo gelinayaa cunugii yaraa gudaha. markuu soo geliyo cunugii yaraa gudaha, haweeney la joogtay Samuel ayaa waxay boorsada cunugii yaraa waxay ka helaysaa baasaboorkiisa. baasaboorkaasiiti ayuu waxay ka dhiganayaa tixraac, laakiin Christine Facebookeeda ayay raadinayaan. isla markay helaan Facebookeeda wax fariin kuma jiro. samanadaanan sooma naqan online, laakiin isla markii sawirka waxaa ka muuqday maqaayadaha ugu caansan magaalada London. isla markii Samuel waxaa soo wacayo Christine. markay soo wacdo waxay u sheegaysaa inay tahay qof xun, inay tahay hooyo xun, laakiin waxay u sheegaysaa inuu haysto asiga cunugiisa eena sidaas ugu tagtay asiga. laakiin Samuel ma ahan mid yeelayo. wuxuu isla markii soo qaadayaa cunugii wuxuuna soo qaadanayaa mootadiisa wuxuuna soo aasanayaa aeroboortka. isla markii wuxuu jaranayaa tigidh ah London. isla markii Samuel wuxuu soo caga dhiga doonaa magaalada London, laakiin asiga ma aha mid yaqaano luqadda Ingiriiska, wuxuu kaliya ku hadli yaqaana luqadda Faransiiska. Samuel cid walba wuxuu weydii doonaa Christine, laakiin dadka ma yaqaanaan Christine. Samuel isla markii waxay isku dhici doonaan ninkaasiti. intuu la dagaalayay ayuu wuxuu soo ilmaami doonaa gabartii wuxuuna ogaan doonaa inuu soo dhigay jaranjarta qaybta hoose. jaranjartaasoo ahayd midda soconayso. isla markii Samuel wuxuu iska taraarixinayaa meelaha jaranjarta laga qabsado wuxuuna doonayaa gabartiisii. markuu soo qabto gabartiisa, Samuel ninkii is dagaalayeen waa nin director ah sameeyo aflaanta wuxuuna ka helayaa Samuel sidoo ugu booday jaranjarada oona u soo qabtay cunugiisa. isla markii ninkii wuxuu sii doonaa adrees lambarkiisa iyo goobta gurigiisa wuxuuna ku xasuumayaa goobta ku sameeya aflaanta. laakiin Samuel isla markii wuxuu soo gaarayaa maqaayadii Facebook kofarka u saarnay Christine, laakiin haweeney halkaa joogtay waxay u sheegaysaa inaan aqoon u lahayn Christine. laakiin isla markii asigoo joogo maqaayadii wuxuu soo xasuusanayaa inuu soo ilaabay boorsadiisa ay ku jirto lacagta qadaadiicda yar iyo baasabooradiisa. wuxuuna u laabanayaa halkii aeroboortkii, laakiin ma soo helaya asiga boorsadiisa. waa mid laga baxsada meesha. isla markii Samuel waxaa soo wixi doonto boostiisa Samada waxayna u sheegi doontaa asiga inay ka ceerisay shaqada. Samuel wax walba uu waayay asiga ku saabsanay waxaa dahayo roob. Samuel wuxuu la lugeynayaa gabartiisa yar. Samuel ma yaqaano meel uu haysto iyo cid ugu soo horeyso London, laakiin wuxuu akhrisanayaa adreeskii ninkii wuxuuna aasanayaa gurigiisa. markuu gurigii gargaraaco cidna kama furayso guriga wuxuuna iska fadhiisanayaa halkaa asigoo halkaa ku hurdayo. laakiin muddo ka bacdi waxaa soo gaarayo ninkii guriga lahaa. asigoo ka xabsoonayo ayuu wuxuu u gagaatamayaa ninkii meesha jiifay, laakiin waa geesigii meeshii jaranjarta iska tuurayay. muddo ka bacdi waxaan daawanaynaa gabartii yareed ee Gloria oo weynaatay. Samuel iyo Berenia waxay noqdeen laba qofood oo saaxiibo ah waxayna isla korinayaan gabartii yareed. gabartii yareedna waxay noqonaysaa mid iska faraxsan waqti walba. Samuel wuxuu ku beerayaa tiimka sameeya aflaanta wuxuuna halkaa ka raasinayaa nolol maalmeedkiisa. saaxiibkiis Bereniane waa directorka filimka. intuu filimka jilayaan maalinta kale waxaa gabarta haynayo Berenia. Samuel iyo gabartiisa Gloria
waa mid wada ciyaaraan xilli walbo, wada dheelaan, waqtina wada qaataan. Laakiin Gloria waxa uu galayso sanadkii 8aad. Hadda waxay jirtaa Gloria 8 sano, weli ma ahan mid hesha hooyadeed. Sidoo kale Samuel asigu muu helin Christine. Samuel iyo Gloria waxay ku nool yihiin apartment qaali ah. Samuel wuxuu noqday nin caan ah oo jila aflaamta, laakiin asigu muusan baran weli waxa luqadda Ingiriiska ah, laakiin waxa caawisa gabartiisa yar. Samuel asigoo jilaya filim ayaa waxaa soo gaarayo dhaawac aad u yar. Gabartiisana Gloria waxay u sheegaysaa in aabeed jeceshahay oo iska taxadiro mar walbo. Habeenada ka mid ah waxaa loo keenayaa biisa. Halkaana waxay ku daawanayeen filimka cusub oo soo wado Samuel. Muddo ka bacdi Samuel wuxuu qorayaa fariimo, laakiin fariimahaas waxaa akhrisanaysa gabartiisa. Laakiin wuxuu sheegayaa in hooyadeeda aysan ka maqnaynin, laakiin ay ku maqan tahay shaqo. Samuel wuxuu sameynayaa xasuuso malaabaal, wuxuu sameynayaa buuq xasuus qora. Christine ayuu wuxuu ku dhajinayaa dad caan ah sida Barack Obama. Wuxuu sheegayaa in hooyadeed ay tahay qof caan ah. Samuel wuxuu sii wadayaa sida caadadiisa ahayd si dirista fariimaha, laakiin ma ahan mid online ah. Waxaan ugu dambeysay online-ka ku dhawaad 8 sano ka hor. Samuel gabarta yar macallimiinteeda waxay weydiinayaan halkay jirto gabarta yar hooyadeed, laakiin Samuel asigu wuxuu ugu jawaabayaa waan raadinayaa weli, mana aqaano meel ay jirto. Laakiin Samuel wuxuu la tashanayaa dhakhtar weyn oo joogo London. Dhakhtarkii asigu waxay go'aan ku gaarayaan inuu sameeyo hooyo faag ah, wuxuuna sameynayaa gabar aad u daayar. Gabartaas ayaa waxay soo duubaysa fiidiyowgaas ayuu wuxuu rabay inuu tusiyo gabartiisa yar oo ku qanciyo fiidiyowgaas oona dhaho waa hooyada tan. Laakiin waxaa ka hor imaanaya fikirkaas saaxiibkiisa Berenia. Wuxuu sheegayaa inay maalin ku fahmi doonto sheekadan oo asigane baxar ku geli doono. Laakiin Samuel oo ka cabsoonaya inay gabartiisa inay qalbigeeda wax kala galaan ayaa wuxuu sameynayaa sidaas inuu ku faraxdo gabartiisa. Laakiin muddo ka bacdi wuxuu ku naqanayaa Facebook. Samuel waa mid diray weli fariimihii, laakiin waxaa soo naqanaysaa Christine maanta online. Fariimihiisa oo dhan way akhrisanaysaa, wayna u soo jawaabaysaa, wayna u imaanaysaa. Ugu dambeyntii gabarteeda Gloria waxay la kulmaysaa markii ugu horeysay hooyadeeda, waana mid ku faraxsan maanta nolosha. Waxayna wada haystaa hooyo iyo aabe. Christine iyo Samuel waxay ka wada hadlayaan mustaqbalka gabartooda. Maalintii ku xigtay waxay u wada kaxeynayaan iskuulka sida u siiyaan farxad. Samuel saaxiibkiisa Berenia wuxuu sheegayaa inuu ka cabsoonayo inuu waayo gabartiisa Gloria. Isla habeenkii ku xigtay waxay soo wadaasanayaan magaalada. Halkaas ay ku qaadanayaan waqti, laakiin waxa imaanayo photographer shaqadoon ah. Wuxuuna ka qaadayaa sawiro, laakiin sawirada kuma qanacso Christine. Laakiin Samuel waa mid ku faraxsan sawirada. Christine ayaa wuxuu sheegayso inuu photographer-ka ka dilay sawirada sababtoo ah waxaan leeyahay saaxiib wuxuuna joogaa magaaladan London, mana rabo in lagu ka arko. Christine waxaa la barayaa asxaabta Samuel, Berenia iyo producer-ka filimka cusub oo soo wada Samuel. Maalintii ku xigtay Samuel wuxuu wadanayaa shaqadiisa, wuxuuna aasanayaa goobtii lagu jilay filimka. Samuel waxaa loo sheegayaa inuu iska soo tuuro dhisme gaarayo 12 piano, laakiin gabartiisa ayaa ka diidayso. Producer-ka filimkaas ayaa laakiin ku adkaysanayo inuu iska soo tuuro Samuel waa mid u qanacsan inuu iska soo tuuro dhismahaas aad ku dheer, laakiin gabartiisa oo diidayso ayuu iska soo tuurayaa. Samuel markuu iska soo tuuro wuxuu isku xirayaa indhihiisa. Dadkoo dhan waxay u maleynayeen inuu asigu dhintay, laakiin indhaha ayuu kala qaadayaa hal mar, wuuna qoslayaa. Halkaa waxaa ku farxayso gabartiisa Gloria. Maalintii ku xigtay Samuel waxa uu imaanayso Christine, waxayna ku leedahay waxaan rabaa inaan soo haysto gabarta muddo. Laakiin Samuel uma diidayo, wuu fasaxayaa. Laakiin waxaa maqlayso Gloria. Markay maqasho Gloria way ka xumaanaysaa, laakiin waxay u kaxaysanaysaa gurigeeda. Subaxii ku xigay way soo raaxayaan, waxayna isla cunayaan ice cream. Waa mid faraxsan Gloria, waxayna ku faraxsan tahay la joogitaanka hooyadeeda. Laakiin maalintii ku xigtay Samuel wuxuu ka soo doonanayaa gabartiisa Christine,
laakiin Christine ayaa waxay u sheegayso inayna siinaynin gabarta ayna u wada doonto New York. Samuel ayaa wuxuu u sheegi doono inayna wada gelin gabarta ayna tahay hooyo xun ayna ka maqnayd waqti aad u fara badan, haddana xaquuq u leeyahay asiga inuu wato. iyadoo hurdiisa ayuu ka soo wadanaya Samuel. laakiin muddo ka bacdi xaaladdu way xumaanaysa. waxaa la isla haysanayaa maxkamad, waxaana la wareysanayaa Samuel saaxiibkiisa ahna directorkiisa Barinia. maxkamaddu waxay weydiinaysaa wuxuu asiga ka og yahay familkan, wuxuuna sheegayaa inuu gabartan asiga ku soo koriyay 8 sano ku dhawaad gacantiisa. waxaa kaloo la wareysanayaa Gloria macallimadeeda, waxayna halkaa ka sheegaysaa inay gabartan weligeed ku arkin hooyadan oo la joogi jiray aabaheeda, iskoolkana u soo kaxay jiray aabaheeda. waxaa maxkamadda dhegaysanaysaa markiisa Samuel, wuxuuna maxkamadda ka codsanayaa in loo dhaafo gabarta asiga oona jecel yahay gabartiisa oona asiga soo koriyay oona xaq u leeyahay. maxkamaddii ay ku dhawaaqayso xukunka waxayna sheegaysaa Samuel inuu asiga gabarta hayso doono marka hore wadna sii karo Christine. guushuna waxay raacaysaa Samuel iyo asxaabtiisa. Samuel waa mid ku farxay guusha. maalintii ku xigtay wuxuu soo raacaya gabartiisa iskuulka, wuxuuna nindeenayaa waxbarashadeeda. laakiin Samuel waxaa soo baxaysa natiijadiisa maxkamadda, waxaana loo sheegayaa inuu DNA-ga gabartiisa iyo asiga ay kala duwan yihiin oosan dhalin gabarta. Samuel waxaa ku jeejeysayso Christine, waxayna u sheegaysaa gabartii asiga inaan isku DNA ahayn. Samuel wuxuu cisho weynayaa hilintiisa, waxaana soo daadanayso hilintiisa. wuxuu naqanayaa mid aad iyo aad u xariisan, wuxuuna ka xumaanayaa waqtiga uu soo lumay gabartan yar Gloria. laakiin waa mid jecel aabaheeda, waxayna isla markii u soo cararaysaa aabaheeda. Samuel wuxuu ku gaarayaa inuu nolosha isdhaafiyo, laakiin waxaa ka soo gaarayso gabartiisa yar ee Gloria, waxayna ka soo baxsanaysaa hooyadeeda, waxayna u baxsanaysaa aabaheeda. Samuel iyo gabartiisa yar Gloria waxay isku soo raacayaan meeshii filimka ka bilaabanayay ee ahayd xeebaha Faransiiska. halkaasna waa halkii uu ku barbaaray asiga Samuel, wuxuuna u sheegayaa taariikhda aabihii iyo asiga. laakiin isla markii waxaa soo gaarayo Christine iyo saaxiibkiisa ahaa directorka Barinia. Samuel waxaa sidoo kale u soo noqonayso shaqadiisa, dib shaqadiisa ugu soo celinaysaa boostiisa Samaada. filimku wuxuu ahaa filim qiso cajiib ah, wuxuuna ahaa filim laga qaadan karo wax fara badan. filimkan camal intaa ku kulmeyno waxaan kaaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.